dhasha ama muujaha lagu soo dhaweeyay adduunka waxay noqon kartaa waqti farxadeed si yeeshee mararka qaarkood waxaa dhici kara dhibaatooyin haweeney kasta waxay waaye aragnimo u leedahay uurka iyo dhalmada way adkaan kartaa si yeeshee haddii xilli hore la ogaado calaamadaha dhibta keenaya ama talaabaha boon la qaado waxay badbaadin kartaa nolosha. ujeedada filimkan waxay tahay inuu ku tuso qaar ka mid ah dhibaatooyinka guud iyo sida loo xaliyo dhibaatooyinkaasi. waqti hore oo la sii ogaado xaaladda caafimaad waxay ka dhigan tahay in hooyooyinka iyo dhallaankuba ay ka faa'iidaysan karaan daryeelka caafimaad ugu wanaagsan ee la heli karo. cisbitaalka ayaan ku dhalay ilmahayga dhiig la'aan awgeed. waxaan uga jeedaa in bir aan ku filnayn aanay ku jirin dhiiggayga. dhiigbaxa xilliga dhalmada aad ku jirto haddii aad bilaa dhiig tahay waxay noqon kartaa halis. qaabka ilmahaygu ugu jiray makaanka ma fiicnayn. wuu fooraray sidaa awgeed taageero ayaan uga baahday umulsadaydii. way wanaagsanayd inaan xilli hore sii ogaado xaaladda aan ku sugnaa si aan caawimaad uga helo umulsada ka hor inta aanan dhalin ilmahayga. waxaan la sheekaysanay qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaad kuwaas oo noo sheegay sida loo ogaado calaamadaha xalista xilliga uurka ka soo hormaray wixii aan samayn lahayn haddii aanu aragno calaamadahaasi. Janet Fayle waa umuliso ka shaqaysa goobaha caafimaadka joogtada ah. dhiig la'aanta ama dhiig oo daciifo wuxuu dhacaa haddii haweenaydu aanay cunin cuntooyin aanay ku jirin macdanta bir oo aan ku filnayn marka qaarkoodna loogu yeero kooxaha fitamiinada B oo laga helo khudradda cagaaran. sidoo kale haddii haweenku dhiig baxaan waxay yeeshaan xanuun gooryaana ama waxaa ku dhaca xanuunka duumada. jirku wuxuu u baahan yahay macdanta birta si uu u sameeyo unugii dhiig caafimaad qaba iyo haweenayda uur kale waxay u baahan yihiin macdan bir ka badan tan jirku u baahan yahay. caafimaadka wanaagsan iyo sidii looga hortagi lahaa haweenka uurka leh dhiig yaraanta hayso waxay u baahan yihiin inay cunaan cunto caafimaad qabto oo dheelitiran. waxaa jira dariiqooyin sahlan oo lagu garto dhiig la'aanta. waxaa ka mid ah adoo dareemo dheefsi la'aan, wadna garaac ka dhaqsiyo badan kan caadiga ah iyo adoo aad u daala. sidoo kale waxaad ka feejignaataa calaamadahan kale ee dhiig la'aanta. miyuu maqaarku midabkiisu caadiga ah ka duwan yahay? eeg calaacalaha gacmaha iyo cidhbaha gaar ahaan. haddii galku ishu ama carabku aad midabkiisu caddaan u noqdo ama xitaa uu aad u cad yahay waxaa suurtagal ah in ay jirto calaamad dhiig la'aan ah. haweeney kasta oo uur leh ee isku aragta mid ka mid a calaamadahan waxaa la gudboon in sida ugu suurtagalsan ay caawimaad uga dalbato shaqaalaha caafimaadka. waayo dhiig yaraantu waxay sababi kartaa dhibaatooyin xilliga uurka iyo dhalmada. waa arrin iska caadi ah in waxoogaa dhiig bax ahi ku yimaado xilliga dhalmada. hase yeeshee haweeneydii kasta ee uur leh ee bilaa dhiig ah xitaa waxoogaa yar ah oo dhiig bax ah ayaa aad u khatar gelin kara. sidoo kale haweeneyda uurka leh waxaa jirta in fursad ilmaheedu si fiican ugu dhex kori karin makaankeeda. haddii 2 sano uurka la kala fogeeyo waxay u saamixi kartaa in jidhka haweenaydu uu bogsado diyaarna u tahay inay ilmo kala qaado. habkan oo kale ayaa la iskaga ilaalin karaa dhiig la'aanta. calaamada kale ee xalista ahi waxa ay tahay dhiig ka yimaada xilliga uurka. waxaa muhiima inaad raadsato caawimaad caafimaad halkii suurtagal ah haddiiba ay arrintani dhacdo. waxaa laga yaabaa in mandheerta oo ah xubinta quudisa ilmaha ku dhex koraya gudaha inay xanibto marinka dhalmada ama ay kala dhex gasho gidaarka ilmagaleenka. dhiig ayaan isku arkay xilligii uurka aan lahaa, kadibna waxaan la kulmay dhakhtar. waxaan ogaaday in mandheertaydii ay isku gudubtay marinkii dhalmada. waxaan u jeedaa inaan u baahday in dhakhtar qaliin igu sameeyo si aan si badqabta u dhalo ilmahayga. qaliinkan ayaa suurtagal ka ahaa halka aan ku noolaa. nasiib baan leeyahay. haddii aanan u tegi lahayn dhakhtarka, ilmahayga suurtagal may noqoteen inaan noolaado. madax xanuun daran, cagabarar xaddhaaf ah, buuqaha gacmaha iyo wejiga, dhalanteed ama aragga oo baaha dhammaantood waa calaamadaha halista ee xilliga uurka. kuwana waxay noqon karaan calaamadaha haweeneyda u horseeda dhiigkar aad u sareeya iyo xaalad lagu magacaabo dhiigkar aad u sareeya oo ay yeelato hooyada uurka lihi uurka ka hor. haweenka qaarkood ayaa la kulma laab xanuun ama calool xanuun iyo matag. haweeney kasta oo laab xanuun ama calool xanuun la kulanta waxaa la gudboona inay raadsato kaalmo caafimaad isla markiiba. haddii aan laga daweyn dhiigkarka aadka u sareeya hooyada uurka leh waxay sababi kartaa inay haweeneydu ay yeelato suuxdin ama inay carabka cunto. waxay dhimasho ku keeni kartaa hooyada iyo canuga
waxaanay u baahan tahay inay daryeel caafimaad degdeg ah ka hesho shaqaale aqoon caafimaad leh. had iyo jeer xaaladani waxay u baahan tahay in degdeg ilmaha looga dhaliyo. waxaa sidoo kale muhiim ah in la ogaado xaaladda saamaynta ku yeelan karta haweeneyda umushay. haweeneydii kasta ee isku aragta calaamadahan 6 toddobaad gudahood ee haysata ilmo waxaa habboon inay raadsato daryeel caafimaad degdeg ah. haddii aanan heli lahayn caawimaad caafimaad markii madax xanuunka dawaqaada leh ee cagabararka igu bilaabmay, aniga iyo ilmahaygu waanu dhiman lahayn. nasiib baan lahaa inaan awoodi karayay inaan dhakhtar la kulmo. xaaladayda waa lala socday, waxaana la qorsheeyey inaan cisbitaalka ku dhex dhalo. inaad sii ogaato waqti hore calaamadaha xalista waxaa loola jeedaa inaad caawimaad ka heli kartid shaqaalaha caafimaadka ayaa haweenka uurka leh kula talin kara daryeelka ugu wanaagsan. waxaanu sidoo kale ka codsanayay Dr. Natalia Greenwald muddo ka badan 20 sano daryeelaya haweenka uurka leh iyo kuwa dhalaya waxay noqon karto dhibaatada kale ee iman karta waqtiga lagu jiro uurka iyo foosha. xumad xilliga uurka dhexdiisa ama dhalmada ayaa ah calaamad halis u ah in haweeneydu xanuun qaado. xanuunka waxaa sababa marka xanuun dhaliya ama jeermis uu galo jirka haweeneyda kadibna ay xanuun dareento. xanuunkan wuxuu dhici karaa xaalad kasta inta lagu guda jiro uurka ama dhalmada kadib. haddii haweeneydu xanuun ku dhaco, xaaladdan waxay noqon kartaa mid aad u halis ah. haweenka leh xumad aad u sarreysa waxay yeelan doonaan dub kulayl dareema haddiiba la taabto. lagama yaabo inay caafimaadaan dhixan, gariir ama dhidid. calaamada kale dheecaan ka yimaada marinka dhalmada oo ur aan habboonayn leh. sida ugu suurtagalsan u raadso daryeel caafimaad maadaama xanuunku khatar ku yahay haweeneyda iyo ilmaha ku jira ilmagaleenka. haweenka xanuunsada marka uu ilmaha dhasho ayaa sidoo kale laga yaabaa in dhiig badan ka yimaado marka la barbardhigo tan laga filayo inuu ka yimaado marinka dhalmada. waxaa laga yaabaa in xinjiro guntiimo ay ku dhex jiraan dhiigga iyo ur qudhmoon. sida ugu suurtagalsan u raadso talo caafimaad. bil kadib canugaygii koowaad gariir iyo dhiigis ayaa igu bilaabantay. waxay ahayd inaan tago cisbitaalka, waxaana la ii sheegay in waqtigii habboonaa aanan iman. waxay ii sheegeen inaan dhiman lahaa haddii aanan tegi lahayn cisbitaalka waqtigii saxda ahaa. waqtiga uurka lagu guda jiro bararka hooyooyinka xajmi ahaan wuu sii kordhaa, ilmuhuna dhaqdhaqaaq badan ayuu sameeyaa. had iyo jeer waxaa jiri kara in ka badan hal ilmo. waxaa laga yaabaa in ilmuhu ku samaysmo goob aan caadi ahayn. Dr. Natalia Greenwald ayaa inaga siinaya talooyin arrinkan ku saabsan. haweenka qaabka uurka calooshoodu aanu caadi ahayn ama uurkoodii sii weynaada kadib waxaa laga yaabaa inay mataano sidaan, amase waxay noqon kartaa in ilmuhu u dhinac jiifo ama uu xagga hoose u foorarsado halkii madax u foorarsan lahaa. xaaladdan waxaa loo yaqaanaa qalaamo gedis. sidoo kale haweenka in ka badan hal ilmo oo aanu madaxa ilmahoodu hoos u foorarin waxaa had iyo jeer lagula taliyaa inay ku dhex dhalaan cisbitaalka. mararka qaarkood qalin ayaa la sameeyaa halkaas oo ilmuhu ama carruurtu laga dhaliyo iyadoo laga soo saarayo caloosha hooyadii. qalinkan waxaa lagu samayn karaa oo keliya cisbitaal dhexdii, waxaanay u baahan tahay in si degdeg ah loo qalo si loo badbaadiyo hooyada iyo ilmaha. labadayda mataanoodba waxaa la igu dhex qalay cisbitaalka dhexdiisa. labadooduba waxay ahaayeen dabakeen, sidaas daraaddeed waxaa tala ahaan la igu siiyey inay aad igu dhib yar tahay in cisbitaalka dhexdiisa la igu dhex qalo. hooyooyinku waxay la sameeyaan kalgacal carruurtooda uurka ku jirta. marka ilmuhu uu korayo waxay ogaadaan inay jiraan waqtiyo ka mid ah maalinta uu ilmuhu aad u firfircoon yahay. haddii uu ilmuhu joojiyo dhaqdhaqaaqa sida inta badan caadi ahaan lagu yaqaan, kadib waxaa habboon sida ugu suurtagalsan inaad u raadsato caawimaad caafimaad. raadso caawimaad caafimaad haddii ay suurtagal tahay haddii aad ogaato mid ka mid a calaamadaha soo socda ee halista ku ah uurka ka hor. haddii haweeneydu aanay neefsan karin, ay leedahay wadna garaac degdeg ah iyo daal, waxaa laga yaabaa inay dhiig la'aani hayso. 2. haddii haweeneydu dhiig ka socdo, waxaa laga yaabaa inay noqoto calaamad in mandheertu ay ku gudban tahay marinka dhalmada. 3. haddii haweeneydu leedahay madax xanuun daran, cagabarar, gacmaha iyo wejiga, calaamadahan waxaa laga yaabaa inay noqdaan uurka ka hor dhiigkar aad u sareeya. haddii haweeneydu ay gariirayso, qarqarayso amaba ay xumada aad u sarreysa leedahay, waxay astaan u noqon karaan xanuun iyadoo dhiig ama dheecaan ur qadhmoon uu ka imaanayo marinka dhalmada. haddii ilmaha dabakeen yahay ama hal ilmo wax ka badan la filanayo inuu dhasho, raadi caawimaad caafimaad. 6. haddii uu ilmuhu joojiyo dhaqdhaqaaqa, sidoo kale waa arrin muhiim ah in gargaar caafimaad la raadiyo. waxaynu niri bilowgii filimkan in urarka badankooda aanay dhibaato lahayn, hase yeeshee haddii xilli hore la ogaado calaamadaha dhibta keenaysa oo sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qabto, waxay ka dhigan tahay in haween badan ay si badqabto u dhali karaan una horseedi karto qoysas iyo bulshooyin farxad badan.
nasiib baan lahaa inaan helo dhakhtar igula taliyey inaan ilmahayga ku dhex dhalo cisbitaalka. Taasi ayay ahayd sababta aan si badqabta ugu dhalay ilmahayga iyadoo dhowr dhibaatooyin ay isoo gaadheen.